بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا لها شرفت لمال كستا جوجتان إلهي سبحانه وتعالى هايدين قرحيو دنبيجينا دنبيج والدكنا دافو وحا إلهي سبحانه وتعالى ويديسانيا ولا الكستو يسو دعية وإلى تالية وقلبي فيعا ونصيحة فيعا إسية وأتكم هاتنتين والي نجمع هاد علينا مركزتنا وحن ديار وهاي إن هذا الكينا مغلو نصيحة نقاطو دعادنا عن متقنا إذن كجمع هاد عليو إلهنا ويديستو إنه دعادنا نقبله. أنت كذب موضوع ما تكلم دونه وموضوع لقيا ومركع مقشد إنا استهجسد، لكن حرجينا يا إنا هذا نستهجن موضوع ما أنت حكوا سابسني هاي تذكر جنك كبقى جن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والما أنت محا ناصر على تقول عجين بكالله ولا لا الجنك واحد أكتين إنه يهم مخلوق الله سبحانه وتعالى أبوري إسلام مركعنا لو أبوري عباده، لكن نصيب دره dadka qaar way ka baqaan injinka laga baqo waa wax dabiici ah, laakiin daawo ayay leedahay. ma ahan inaad jinka aad looga baqo. waadna ogtiin jinka iyo dadka ayaa ka fadli badan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxr walaqad khalaqna linsaana fi axsani taqwiim. ilaahay subxaanahu watacaala dadka wax walbuu ka sharaf yeelay. makhluuqaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray waxay ku jiraan dadka kuwa ugu sharaf badan. haddaba jinka in laga baqa ma ahan. waxaa xasuustaa dadka qaarkood markaan Soomaaliya joognay ama ku nooleen waagaa yareereen habeenkii waa la baqay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. waxa weeye masquushi markii la galayo waxa weeye toosh baa la qaadanaya mid wuxuu leeyahay heblaay raac. dumarkan u badan dumarka aad bay jinka uga baqaan, inkastoo hadda ay soo baxeen barag jinka naftirkooda ka baqaya. marka jinka in laga baqo ma aha. maanta mawduuca waxaan kaga hadlaynaa sidee looga hortagi karaa inaan jinka laga baqin. dadka qaarkood waxay leeyihiin anagu soo hadal qaadin. war ilaahay subxaanahu watacaala la tala saarto wax laga baqayn iska dhaarto. haddaba waxaan hadalka kusoo koobayaa jinka arrimahan ayaad oga badbaadisaa. marka koowaad walaalayaal waxaad ogaataa alisticaanatu billah, inaad ilaahay tala saaratid, inaad ilaahay kaalmo weydiisatid, kadibna aad ilaahay subxaanahu watacaala aad magan geshid oo aad shaydaanka ka magan geshid. waa loo baahan yahay. oo sharka shaydaanka shayaadiinta waa shar badan yihiin, dadku waa dhibaan, laakiin mar walba waxaa la ogaataa inaad adigu ilaahay ku xiran tahay. qofka ilaahay ku xiran waxba ma dhibaan. waxaa lagaa rabaa inaad salaada xifdidid oo waqtigeeda aad ku tukatid. dadka qaarkood maca alasaf ayagoo tukada haddana waxaa laga yaabaa inay jinka ka baqaan. salaadu walaalayaal waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala qofka ku ilaaliyo. haddaba waqtigeeda haddaad ku dadaashid aa khushuuca la timaadid waxaa insha allahu tacaala inay shayaadiinta kaa cararayso. qodobka saddexaad inaad adkaarta akhrisid. adkaarta subax la akhriyo iyo galabka la akhriyo oo aad ilaahay subxaanahu watacaala marka aad tiixanaysidna aad xustid, marka aad soo toosisidna xustid. aad tahay qof mar walba oo muslima ilaahay subxaanahu watacaala xusa. qodobka kale waxa weeye inaad qur-aanka akhrisid, gaar ahaan suuratu baqara. suuratu baqara waa suurad cajiiba. nabiga sala allahu alay wasallam wuxuu leeyay guriga lagu akhriyo suuratu baqara shahaadiinta way kig bay dhawan cararaan. marka haddaadan akhrin karin inaad dhegaysatid iska daaro. maanta intaad jikada ku jirtid, intaad cuntada suubisanaysid, daaro subaxi ku bilow suuratu baqara. fawaa'id badan ayay leedahay. qur-aanka o dhanna waa sidaas, laakiin suuratu baqara ha la ogaado. qodobka saddexaad ama shanaad lixaad maan dhahaa shaydaankii baa isku inaad mataqaanaa waxyaalaha wanaagga suubisid, sadaqada bixisid, aad hadalka wanaagsan badisid, aad tahay qof qalbi furan, walaalaha khayrka la jecel, aadan ahayn qof negative ah. dadka negativeta shayaadiinta badanaa xamada inay xoogaa mataqaanaa ka faa'iidaysan karaan inuu caraysan yahay qofka, laakiin hadduu carada iska ilaaliyo uu qalbi furan yahay, walaalihiis wanaagga la jecel yahay, waxaa laga yaaba ilaahi subxaanahu watacaala inuu sharka bujiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay walaalayaal inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad si daacad ah oo dhab ah aad ilaahay subxaanahu watacaala u baridid, oo inaad ilaahay ka baridid inuu sharkan kaa qaado. haddaba waxaan hadalkayga kusoo koobayaa ilaahay subxaanahu watacaala shayaadiinta naga ilaaliyo, isla markaana aan laga baqin. waa caadi musqusha markaad galaysid lugta bidix la gal allahuma innii acuudu bika min alkhubthi walkhaba'ith dheh. markaa kasoo baxayso qufraanag dheh. gurigaada markaa ka baxaysa adkaarta akhri. cuntada markaa cunaysa bismillah dheh. albaabka markaa xiraysa bismillah dheh. dharka markaa iska bixinaysa bismillah dheh. balankeen maxaa waaye shayaadiintu waa inay naga baqaan, sida cumar ibnu khataab radi allahu canhu uga baqi jiren. cumar wuxuu nabigu sala allahu alay slam sheegay markuu jid qaado shaydaanka jidka loo qaadi jiray. sababta ma taqaanaan? cumar wuxuu ahaa ahlu khayr, khayrka ay ku dadaali jiray. cumar alfaaruuq buu ahaa. marka dadka o dhan waxaa la rabaa khayrkana ku dadaalaan. walaalkii naasir cadceedo idin leh wixii aan gafay waa nafteyda iyo shaydaan, wixii aan asiibay ilaahay subxaana watacaala iga ajarsiiyo. isla markaa xasuusnaada inaad like saartaan pagekayga, dhag ku siiya
ama subscribe rugteeda youtube-ka ah si aad u daawataan fiidiyoyadii ina dhaafay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.